khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka gobolka Gado iyo kan maamulka Jubbaland oo sii xoogeystay iyo xiisad arrintaasi la xiriirto oo saaki ka taagan magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado waxa warbixintan ku soo koobi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo maamulka gobolka Gado ee sanadaha badan soo socday intaan guda gelin daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa in beedkeena bayaan Somali TV like soo saartaan isla markaana flow aadaan sina share gareysa si saaxiibadeen ay u gaaraan markan warbixinteena ayaan guda gelina shalay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado waxa loo diiday laba diyaaradood oo ka baxay magaalada Muqdisho labada diyaaradood waxay suurta ku sameeyay sida la tilmaamay dadka deegaanka waxaana loo diiday inay ka degaan garoonka diyaaradaha magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado talaabadan ayaa la sheegay inay fulinayeen dadka deegaanka waxaana la xiriirinayaa isqabsiga siyaasadeed ee salka ku haya cidda maamulaysa gobolka Gado warbixin hordhac oo soo baxay waxay sheegayaan in mid ka mid ah diyaaradihii shalay laga celiyay magaalada Garbahaare ee la socdeen xubnaha gobolka Gado uu dhawaan magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dawladda Soomaaliya ayaa isku dayaysa in Garbahaare xoog uga dejiso maamulka cusub ee Jubbaland uu magacaabay si ay xilalku ula wareegaan arrintaas oo guul dareysatay Axmed Madoobe toddobaadkii hore maamul cusub ayuu u magacaabay gobolka Gado balse shacabka gobolkaasi ayaa diidmo kala hor yimid iyagoo ku andacoonaya in marka hore dib u heshiisiin laga hirgeliyo guud ahaan gobolka oo dadka badankood aysan jeclaan nidaamka maamulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddadii sanadkeeda ay jirtay waxay ku fashilantay inay xasiliso khilaafka ka taagan maamulka gobolka Gado oo abuurtay maamulkii ka horeeyay oo madaxda ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulanajiis oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa soo saaray qoraal adag oo kaga hadlaya xaaladda gobolka Gado iyo jahwareerka maamulka ka jira muddo 3 sano ah waxa uu sheegay xildhibaan Kulane in gobolka Gado aysan suurtagal ahayn in Jubbaland ay hore ugu guuldareysatay isku dayga ee wadahadda isagoo sheegay in reer Gado marar badan loo adeegsado awood ciidan iyo dawlado shisheeye madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhawaan maamul cusub u magacaabay gobolka Gado taas oo hadda soo cusboonaysiisay hadalhaantii jahwareerka maamulka ee sanadihii la soo dhaafay ka jira gobolkaasi dhanka kale khilaafka ka taagan gobolka Gado waxa uu sababay in xalay weerar lagu qaado guriga ugaaska beesha Mareexan oo ka mid ah beelaha awoodda ku leh gobolka Gado isla markaana sida weyn u diidan hoggaanka gobolka uu soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland tan waxay u muuqataa in dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu isku dayaya in maamulka cusub ay si xoog ugu dejiyaan Garbahaare shacabkuna ay diidan yihiin ay ka dhalan karto qalalaasi isku bedela gacan ka hadal isla markaana dhibaatooyin hor leh horseeda